بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انت لمتي الله ونحريستو، انت لقد انتي الله قرقارو وحا كيرته ilma fara badan oo aabahood dhintay agoontoobay oo guryahooda ku soo haray oo laga yaabo inay dayacan yihiin hooyo fara badan oo dhimatay iyadoo ilmaheedii meel isla fadhiyaan baa jiri isla yuuraraan ayaa jiri karta dad badan oo dhaawac xanuunsan baa jira iyaguna oo isbitaalada iyo guryaha jiifa. ilaahay ha u gargaaro, sabarna allah siiyo. ikhwaanana مسألة هذا والله هذا العلماء وكهذا الشيء إن كستو عدل إلى هذا سوى في الله هذا الله وهذا الكيس عنايه. أنا كمان كواحد رأينا عن كتابته لأنك حرمة دم المسلم وفك مسلم دي جيسة حرمة أولية هاي إلا ذاتك الأمانة يجريض عن مغلين ضد مسلمين أوايا marka dad bani aadam gacantooda un bayna sababteen waxa ay ku laadeen ama ku baabeen cudur ma aha. marka qofkan muslimka dhintaynana ama la dilaynana miisaan uu ilaahay agtiisa arrintiisa ku leedahay baa jirta. qaatilka wax dilaynana ilaahay agtiisa meel buu ugu qiimaysan yahay. waxa soo dhan in la fahmo ayaa loo baahan yahay. marka ugu horeyso diinteenan islaamka limaslahati albashar bay soo degtay dadka maslaxadooda, dadka in maslaxadooda la ilaaliyo diinan wa dunyan, dhanka adduunyada iyo dhanka diinta labadaba. maxaa yeelay dadku adduunyada nolol wanaagsan inay ku noolaadaan waa u baahan yihiin oo raaxo leh oo idminaan iyo deganaansho leh oo iimaan leh. diintooda inay u fiicnaatana waa u baahan yihiin oo adduun iyo aakhiraba ay ku nabad galaan. marka diintan limaslahati albashar bay usoo degtay. 5 arrimood bay ilaalisaa oy xifdisaa. 5taas mid kamida ayay tahay nafta qofka muslimka ahi. diinta waxay usoo degtay lixifdi diini, diinta nafteeda in la ilaaliyo oo dadku ay noqdaan dad allihii abuurtay aaminsan oo ku xiran oo caabudaya, wixii uu ka reebay ka haraya, wuxuu amray fulinaya ay noqdaan. sidaas dad ilaahay caabuday inay noqdaan, sidaasay xifdu diin baa la yidhahdaa. nusuusta qur-aanku aad bay uga hadashaa. waxaa kaloo diintu ay ilaalisaa maalka oo isaguna maslaxad weyn dadka u haya in la ilaaliyo la xifdiyo aan lagu dheelin. nusuus fara badan baa soo aroortay. waxaa kaloo diintu ay ka hadashay oo hala ilaaliyo ay tiri caqliga, oo isaguna haddii qofku intuu caqliga leeyahay unbuu waxyahay, haddii uu caqli beelo isaga naftiisa wuxuu noqonayaa wax culaab iyo shiddo ku dadka kala noqonaya. in caqliga la ilaaliyo waxalaali wixii maandooriya diintu waa tan xarimaysa wayo. waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha ilaalinaysa cirdiga iyo nasliga oo macnaa waxyaabaha faaxishada ee qofka dhaawaca u keenay sumcadiisa iyo wanaagiisa ceeb u keenayo dhaawacmayo qofkii khadka ka saarayo zinada iyo waxlahaas oo kale. waxaa kaloo diintu ay ilaalinaysaa ay usoo degtay xifdul nafsi, nafta in la ilaaliyo. nafta in la ilaaliyo oo aan la dilin biduuni sabab, sabab la-aan inaan la dilin. sabab banaysay marka hadday jirto dilku waa fasahaad buu noqonayaa. sababta banaynaysaa laga yaabo inay fasahaad kale tahay, laakiin markii la isbarbar dhigo labada arrimood waxaa maslaxadu ay gashay si fasahaadka naftani ay wada looga badbaado in naftii la dilo. fasahaadka yar marka nafta dilkeeda uu noqdo. marka arrimahaasa jira diintan marka lixifdi nafsi, nafta in la ilaaliyo usoo degtay. haddii marka kulliyaadkaa la ilaaliyo naftu ay ka mid tahay dhib ma imaanayo.
maslaxadii dadka ayaa soconaysa markii diinta laga leexdana maslaxadii dadka waa dhumaysa hamaj baa la noqonayaa sida hadda dhacaysa oo kale iska soconaysa horta guud ahaan inaan sidaas u baraarugno waa lagama maarmaan haddaba nafta muslimka ah laysat ka saa'iri nufuus qofka muslimka naftiisu nafyaalka kale la mid maaha muslimiinta dhexdood inay istilaan ayagana waa la xarimay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulku noo soo diray wuxuu leeyahay kullu lmuslimi cala lmuslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa cirduhu qof kastoo muslima qof kasta weeya kullu min alfaadi lcumuum waay kullu lmuslim muslim oo idin cala lmuslimi qofka kale muslimka xaraamun damuhu dhiiggiisaa ka xaaraana wa maaluhu maalkiisaa ka xaaraana wa cirduhu sharaftiisa inuu dhaawacaa ka xaaraana yani adiga waxaa kaa xaaraana qof muslim inaad dhiiggiisa gashid oo aada dishid waxaa kaa xaaraana qof muslima wax maalkiisa inaad qaadatid biduuni idnihi wa biduuni ridan minhu aada qaadatid ayaa kaa xaaraana waxaa kaa xaaraana wax kala iska dhaafay cirdigiisa hataa inaad xamatid adoon wax kalaba yeelin maalkiisa qaadanin laftiisa wax yeelin inaad xamatid wax isaga uu kahanayo inaad ka sheegtid baa xaaraana waa fahmi karaysaa marka sheekh ya xanta nabigu wuxuu ku tilmaamay nabiga sala allahu alay slam wuxuu ku tilmaamay dikruka akhaaka bima yakrah walaalkaa muslimka inaad ka sheegtid wax uu kahanhayo intaasaa xaaraan ah oo min kabaa'iri dunuub dembiyada ugu waaweyn ka mid a fa kayfa low qataltahu marka haddaad isagiiba dishood kaw ka siisid ka warran marka ninka inaad xamatid aan ugu ogolayn inaad xamatid yaa isagoo kaa maqan wax uu nacayo inaad ka sheegtid aan lagu ogolayn asagoo dhaf haddaad kaw ka siisid ka warran oo meydkiisa dhulka dhigtid ka warran waa wax qofkii wax miisaami karo iimaan iyo caqli saliim lihi oo aada u garanayo marka waxaa naga xaaraana qof muslim maalkiisa iyo naftiisa iyo cirdigiisa intaba waa naga xaaraan rasuulkeena noo sheegay sala allahu calayhi wasalam dadka muslimiinta dhaqan bay leeyihin dhaqankooda waxaa weeyaan inay kala nabadgalaan oo ay nabad ku wada noolaadaan oo nina ka kale uusan dhiiggiisa ballaysanin oo uusan dilin waa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi sideedaba ninka muslimka waxaa weeye ninka muslimiintu ay ka nabadgaleen carabkiisa iyo gacantiisa bal xadiidkaa u fiirsado sheekh nabigaana yidhi sala allahu calayhi wasalam nabiga ayaana yidhi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi waa qofka muslimiintu ay ka nabadgaleen carabkiisa iyo gacantiisa haddii dil iyadoo sidaa arrintu ahayd waxaasoo dhan intii laga gudbo kow la iska siiya ka warram ruuxii naftiisaba laga takhaluso waxaa kaloo nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam muslimiinta markuu u dardaarmay isku hadlay laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin gadaashay ha noqonina gaalo oo qolaba qolada kale qoorta ka garaacayso dad isdilaya ha noqonina waa dardaarmankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin gadaashay ha noqonina gaalo oo qaarba qaarta kale qoorta ka garaacaya marka halkaa waxaad ka fahmaysaa dilku inuu yahay dhaqan gaalaad oosan ahayn dhaqan muslim ya isdilku inuusan ahayn dhaqanka muslimiinta ee uu yahay dhaqanka gaalada taasina meesha ayay ka muuqataa xadiid baa nabigu wuxuu ku leeyay sala allahu calayhi wasalam ani warkayga u nusuus buu isaga badnaan doonaa sheekh nuur baa malaha sii faahfaahin doonee lazawaalu dunyaa ahwanu cinda allahi min qatli muslim min qatli rajulin muslim adduunkan oo dhan cirkiisa dhulkiisa baddiisa
barigiisa oo dhan oo rogmado oo baaba'o oo waxba laga waayo ayaa ka fudud ilaahay agtiisa hal qof oo muslim ah oo la dilo hal qof oo muslim ah adduunyo dhan oo baaba'da bixadaafiiriha oo waxba ka harin baa ka fudud hal qof oo muslim ah oo la dilo annaga agteena maxaa maanta ka jira dilku waa jumlo iyo tafaariiq waa sida lafteed weeyaan dilka maanta dhexdeena ka socda waa jumlo iyo tafaariiq way marna waxaan maqalnaa boqolaal baa dhimatay mar waxaan maqalnaa boqol baa dhimatay mar waxaan dhimatay maqlaynaa isgoyskaasaa mid lagu dilay mar waxaan maqalnaa halkaasaa mid yaalla marka jumlo iyo tafaariiq jumlo iyo tafaariiq socotuu noqday meesha nabigu ka leeyahay sala allahu calayhi wasalam la zawaalu dunya ahwanu cinda allahi min qatli rajulin muslim hal nin arrintaa intay la egtay walaalayaal haddaan qalbi iimaan leh aan wax ku miisaano muslim oo cadaalad sameynayo gar soorayo diinta ilaahaynana wax ku qiimeynaya haddaan nahay arrintan arrin intee la ego isha arrintaa arrin intee la ego nabigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalama wuxuu leeyahay sidoo kale laa yazaalu rajulu fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraam qofka muslimka ah diintiisa meel waasac ayuu ka joogaa ciriiri kama haysto intuusan dhiig muslim galin saasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam marka inta haddaad dhiig muslim aada gashid diintaadana ciriiri bay gashay wey arrintaasina waxaa weeyaan arrin runtii aada iyo aada loogu baahan yahay inaan ku baraarugno wey cuquubada ka dhalanaysa in qof muslima la dilo aayad qur-aan oo dadkao dhan ay wada garanayaan in badanna la isku wacdiyey ayaan kasoo qaadanaynaa inkaas axaadiiadan soo sheegnay sida ay tilmaamaysa aayaddii ku jirtay suuratu nisaa waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha wagadiba allahu calayhi walacanahu wa acadda lahu cadaaban cadiiman ya ma dadka wax dilayaan muslimiin ahayn mase kuwa la dilayaan muslimiin ahayn ilaahay wuxuu leeyahay qofkii qof muslim adila kas u dilo kas iyo maal u dila fajazaauhu jahannam abaalgudkiisa waa naarta jahannama fajazaauhu jahannam weliba wuxuu ihi khaalidan fiiha aqwaasha culummada aayaddaas ku sharaxday hadda sii dhexgali maayo weliba isagoo ku waaray khaalidan fiiha caro ilaahay baa ku dhacday wagadiba allahu calayh caro ilaahay baa ku dhacday ilaahay caradiisaa ku dhacday walacanahu ilaahay uu lacnaday naxariistiisu ka fogeeye wa acadda lahu cadaaban cadiiman cadaab weyn buu ilaahay u diyaariyey dadka dilka fududaysanaya sahashanhaya nusuustaan iyada ah inay aada ugu baraarugaan waa loo baahan yahay ilaahay qof muslim ah dilkiisa laguma sababe marka ikhwaananaa hortu sidaas wey qofka muslimka dilkiisu sidaasuusan u sahlaneen cuquubo sidaa u weynina ay ka dhalanaysa haddii dilkaasoo kale uu dhaco marka wax uu ku dhiiran kara ma aha dil qof muslima ilaa qof iimaan lihi qof wax uu ku dhiiran karaya ma aha sidoo kale dee dili haddii uu dhaco waxbaa ka dhasha cuquubadaas nusuustu ka hadashay ka sokow waxyaabo kaloo ka ratibmayaa jira wixiina maanta ma socdaan oo maxaa ka mid a qof baa qof dilay sharciga ilaahay muxuu yahay ya kas buu u dilay sharciga ilaahay muxuu yahay in la qisaaso soomaa asagana la dilo boqol baa dhimanaysa waa la kala tagay idaacadaha laga sheegay waxaa lasoo dhigay youtube-kaa lasoo dhigay meeshay ku dhammaatay qofka qof dilay waxyaalaha ka laasimaya dilkiisa waxaa ka mida diyo ayaa jirta oo ay leeyihiin haddiiba maaragtay mararka qaarkood ay leeyihiin dadkii qofkoodu dhintay in idaacadaha laga dhagaystay iyo in dad daris ihu markaa ay qooskii u booqdeen
ayay ku dambaynaysaa qofkoodii la dilay qisaas male diya male islaamta iyo ilmaheeda meeshay isla aadayaan iyagaa garanaya halkaasay ku dambaynaysaa warkuna meeshaasuu ku haray marka waxaa weeyaan yani waxaa socda wax caadi ama qofkii waa la dilay jariimadaa waa la galay dadkii ka haray oo dadkiisa ahaa xuquuqdoodii qofkooda haddii la dilo ay heli lahayn lama helin marka inta dambi oo la galahaya waxaa weeye wax caadi ama waxaan dhici karnaa marka dhihi karnaa istimraariyada arrintan oo iska socoto dhibaatadan aan ka bixi la-nahay dhiiggan islaamkan iska socdo oo weliba la fududaystay oo hadda aadbaba meeqay ahaayeen tirada layla isweydiinaayo ya ayaaba u sababa baan dhihi karnaa ilaa taas laga fududaysigan laga laabto sida culimmadii iga horreysay ay sheegtay towbadkeen lala yimaado meesha waxaa weeye wax ka imaanay male xadiid baa jiray aan waxoogaa ka booday oo hadda lafdigiisa aan aada dusha uga haydin laakiin macnihiisu wuxuu ahaa ya man istadaaca minkum an laa yaxuulanna baynahu wa bayna aljannati ya kafu mil-u kafin min damin xaraam yacni ninkii awoodo inuuna kala dhex galin asaga iyo jannada sacabkiisa muggi oo dhiiga u galay inayna kala dhex galin ninkii awooda ha sameeyo arrintaas macnaha xadiidkaas maxaa macnihiisu uu yahay wuxuuna tusinayaa qof dhiig yani sacabkaaga muggiisa kafkaaga hal calaacal muggeedo dhiig muslimo oo daadisay adi iyo jannada inay idin kala dhexgalayso marka ilaahay aynu ka baqno ilaahay aan u towbad keeno inta wax dilaysaa ilaahay ha uga towbad keenaan dilka ummadda ma garanaysaa kalena allah u towbad keena maxaa yeelay haddaanan annagu macaasida ka towbad keenin cuquubada dadkaasi waxyaalaha dadkaasi ay sameynayaan cuquubada ka dhalatay ayaa lagu habsanaysa wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina minkum khaasa hada wabillahi tawfiiq sala allahu wasalama calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi ajmaciin